السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميلول وجوكتين channel كدواني سيوان دكتور صدام حسين channel كسر هذا ميلول وأنكم ما سنتين like and subscribe كيو share كأد مرور هذا اللي قرب تاجنتين سدا إيو سكبا بانين كفيلايا ما أنت وحنا وضع برنامج عصب ولا ده هايو patient zero وحواي برنامج أنك جاهل دونه waxyaalaha maaragtay cudur walbo patient-ka ugu horeeyay ama bukaanka ugu horeeyay oo cudurka uu ku dhacay iyo sidii uu ku imaaday ama halkaan sidoo adduunka ugu bilowday cudurkaasi marka aan u gudagalno barnaamijka maanta ay wado ama cudurka ugu horeeyay ay wada qofka keenay iyo qofka ugu horeeyay oo wadanka adduunka lagu arko cudurkaasi marka cudurka ugu horeeyay ama gabadhi loogu magac daray cudurka typhoid-ka waxa la dhahaa Mary typhoid ama typhoid Mary gabadhani magaceedii oo saxan waxa waaye Malon Mary waa gabar cadaan ah oo ku dhalatay wadanka Ireland oo hadda loo yaqaan Northern Ireland gabadhani waxay dhalatay 1869 waxayna ku soo barbaartay magaalada la dhahayo Cookstown Northern Ireland gabadhani cudurka typhoid-ka way ku dhalatay sababtoo ah bilaayo oo loo maleynaa inay tahay gabadhani cudurkani wuxuu ku dhacay markay uurka ay ku jirtay ama hooyadeed ay uurka lahayd marka gabadhani waxay dhalatay 1869 ama qarniga 1869 marka waxay ku soo barbaartay wadankaasi oo Ireland ah sida loo yaqaan ama UK-ga hadda ka tirsan loo yaqaan Northern Ireland gabadhani markay ay ahayd 15 sano jir way ka soo tagtay wadankaasi ay hooyadeedna way dhimatay waxay isku dayday in ay raadiso meel kale oo wanaagsan oo ay ku noolaan karto ayna ka heli karto arzaaq iyo maaragtay ay ka shaqaysan karto marka eedadeed iyo adeerkeed baa degan oo wadanka Mareykanka magaalada loo yaqaan New York marka waxay isku dayday inay meeshii ay ka soo tagtay safar ay soo gasho 1900 waxay maaday New York 1900 markaas ay meeshii eedadeed iyo adeerkeed ay u maaday la joogtay marka gabadhani waxay isku dayday in maaragtay ay shaqaysato maaragtay shaqo zaa'id ay saas ay u garanaysay ma lahan laakiin waxay garanaysaa waxa waaye sida guriyaasha looga shaqeeyo sida loo yaqaan shaqaalanimada iyo cunto karista ay ku fiicneed marka kadib waxa dhacay 1900 ilaa 1907 gabadhani waxay ka shaqaysay 8 qoys oo kala duwan ama guriyaal 8 guri oo kala duwan oo dadka lacagta leh ee u shaqeynaysa mar walba isku daydana maaragtay in ay guri ay ka shaqeyso gurigaasi qof baa ka xanuunsanay ama dad baa ka xanuunsanay 1900 waxa dhacday inay laga qoro shaqaale ahaan iyo cunto karis guri kamid ah dadka lacagta leh hal isbuuc gudihiis markii gurigaasi ay ka shaqeysay dadkii oo idil baa wada xanuunsaday waxa dhacay markaa kadib waxay isku dayday inay ka tagto guri kale bay tagtay nin lacag la gurigiis baa hadan laga qoray 1900 isbuuc kadib 1901 sanadkaas gudihiisa waxayna isku dayday in ay maaragtay ay isdhaahdo hadana kala shaqeyso marka arinta ku dhacday ayaa ah mar walba ay guri ay tagto dad baa ka xanuunsanaa gurigani markay tagtay 7 qof oo familka kamid ah ayaa wada xanuunsaday dadkii isbitaal baa la jifiyay calaamadaha la soo baxeen waxay ahaayeen shuban calool xanuun qandho joogto ah iyo jirkii oo idil ugu soo baxay baxtiimo yar yar maxaa ku dhacay marka waxay isku dayday hadana inay ka tagto sababta guriga cunto bay u karnaysay guri kale baa loogu yeeray hadana shaqo kale baa la siiyay marka 1904 sanadka markii la joogay 1904 ayaa nin lawyer ah nin wakiil ah gurigiisa baa laga qoray markaas marka gabadhani la ogaani doono inay dib ay keenayso ama cudurka ay ayada wado oo cudurka typhoid-ka marka wax yar u gudagalna typhoid-ka waxa waaye bacterial infection
oo ku dhaca qofka bini'aadanka waxaana laga qaadaa cuntooyinka wasaqda ah hygiene-ka nadaafad darrada iyo maxaa la dhahaa qofkii oo maaragtay gacmihii iska dhaqin iyo cuntada wasaqda ama cuntada si fiican loo karanin ayaa laga qaadaa marka cudurkani sidiis wuxuu ku dhici jiray markii hore oo maaragtay waagaas qarniyaashaas waxaa loo yaqaanay in uu ku dhaco dadka waxba haysan oo faqiiriinta ah inuu ku dhaco marka sidii horaan loo yaqaanay cudurkani wuxuu ku dhici jiray dadka faqiiriinta ah waqtiga ayda ah waxaa isweydiin keentay sidoo ugu dhici hayaa cudurkani dadka lacagta leh maadaama ay dadkani nadaafadoodii ay sareyso baaritaan la qaaday ayaa keentay in Mary Mallon laga shakiyo Mary Mallon waqtiga ayda waxay ka shaqeynaysay nin lacag la gurigiisa oo la yiraahdo oo wakiil ah oo lawyer ah gurigiisa oo la yiraahdo Walter Brown ka gabadhiisii ayaa cudurkii u dhimatay marka kadib ayuu ninkii guriga iska lahaay oo u complain gareeyay dacwad u geeyay wuxuu dhahay gurigiina maxaa ka qaldan markaas ninkii guriga iska lahaay baa yiraahday waxba kama qaldan laakiin waan baaraya oo fiirnaa ninkii guriga iska lahaay ayaa marka ayda wuxuu isku dayay inuu qoro qof oo dhakhtar oo sanitation ku xilsaaran oo dhanka nadaafadda at the same time marka ayadana oo ah nin oo maaragtay sirdoon ninkii sirdoonku wuxuu isku dayay inuu cudurkii u baaro meesha ka imaanayay waxaan laga shaqeeyay gabar shaqaale ah oo guriga u shaqeynaysa oo dharka dadka u baasta oo dharka u baasta ninka guriga iska leh ayaa laga shaqeeyay markii dambena waxay noqotay gabadha inay qabin cudurkii laakiin baaritaankii kadib waxaa la ogaaday Mary Mallon inay tahay qofka cudurkii oo maaragtay dadka ku ridaha Mary Mallon ayaa isku dayday inay guriga ay ka tagto oo shaqadii ay ka tagto marka kadib ayaa la gartay in ay ayada dhib ka tahay ninkii uu ka daba tagay mar ayay isku dayday inay iska soo fiijiso laakiin markii dambe waa la qabtay dawladda iyo wixii loo sheegay waa la baaray markii la baaray waxaa la ogaaday Mary Mallon inay tahay cudurkii saxaradeed lagu sheegay saxaradii baa laga qaaday saxaradii baa lagu arkay cudurkii marka kadib ayaa Mary Mallon waa la xiray meel baa lagu xiray isolation baa lagu sameeyay 2 sano meel ay ku xirnay typhoidka marka sida horaan oo soo sheegay waxaa laga qaadaa cuntada wasaqda ah qofka haduu gacmaha iska dhaqin qofkii oo maaragtay saxaradiisii iska clean gareynin oo maaragtay gacmihii markuu suuliyo uu soo dhameysto xaajadii uu soo dhameysto gacmihii uu iska dhaqin waxaas inka badan baa laga qaadaa cudurkani waxaa waaye marka hand to mouth waaye gacantii wasaq leh afkii hadda la adid sidii laga qaadaa ama qof guriga qaba haduu ku nool yahay marka kadib waxaa dhacday Mary Mallon inay dadkii ay u cawaado ay dhahdo aniga intaas ka badan ma sameynayay mardan shaqo ma shaqeynayay laakiin hal fasaxa inaan banaan ku noolaadaan rabo dawladdu waxay isku dayday in maadaama ay balan ay qaadi hayso in la iska fasaxo Mary Mallon oo la daayo laakiin inay guri dambe ay ka shaqeynayeen dad dambe ay wax ay u karneen laakiin way u ahaani waysay 5 sano kadib Mary Mallon waxay bilowday in ay ka shaqeyso guriyaasha marka kadib ay shaqo ay ka heshay isbitaal ku yaala magaalada gudaheeda New York ah oo maamooyinka ay ku dhalaan isbitaalkii ayaa dad intaas oo maaragtay dad badan ayaa ku xanuunsaday isbitaalkii shaqaalihii iyo maaragtay dad kale oo bukaana ah ayaa ku xanuunsaday markii ayaa la isweydiiyay calaamadihii hadda la fiirin waa sidii waa isku mid kulligood qofkii wuxuu shuban baa jiro qandho baa jirto calool xanuun baa jiro fininkii baa dadkii ka soo baxay 2 qof kamid ah shaqaalahana way u dhinteen cudurka marka dawladdu markii wasaaradda caafimaadka markay imaaday qof booliistii imaaday hadii la isweydiiyo waa Mary Mallon qofka meesha lagu arkay laakiin oo magac kala sheeganay haysa Mary Brown la dhahay marka kadib waa la xiray isolation baa la geliyay quarantine baa la geliyay waa la xiray xabsi daa'im baa la xiray wayna ku dhimatay ayadoo xabsiga ku jirto bay dhimatay marka typhoidka sidiisaba meeshaas buu ka imaaday wuxuuna yahay asymptomatic carrier bay ahayd Mary Mallon asymptomatic carrier waxa laga wadaa qofkii cudurka uu qabaa laakiin calaamado idil ma lahan dadkii kalena uu usii gudbin yahay marka inta ka badan waxa dhacday dadkii ay ku riday inay ayagana ay noqdaan asymptomatic carrier ilaa ay hadda typhoid kaas buu ilaa ay waqtigan uu ku soo gaaray marka waxa dhacday dhaqaatiirtii waxay isku dayeen in ay maaragtay daawooyin loo raadiyo antibiotic oo hadda lagu dhameeyay baa jirto vaccine la qaato baa jirto
iyo intaas in ka badan daaweyn kasii waxaan soo gaarnay barnaamijkii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka haddaad video aad ka heshay fadlan like subscribe iyo commentiga naga ilaawina meel walba joogtiin waxaan idin rajaynayaa peace